بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وناكسن داوديال كسو دوادا برنامج كيني دبك هذا الجمعة وناكسن أيام نودي الله نهي ميل كستو أدكسو جنتهين وتضبي اللباتنكا بشا نوفمبر سنة لبكون إيا اللباتنكا واحد شرادات بدن أو برنامجنا أنو دوبنو sheegay in ay ku weerareen taariikhdooda inkastoo anagu taariikhda aanan laga yaabo mararka qaar inaan afka ka sheegin ama qoraal aan ku muujinin laakiin muuqaal walba oo la soo galiyo barta YouTube-ka waxa taariikhda si automatic u qoraya oo raacinaya shirkadda YouTube ayaa raacinaysa xagga hoose ciwaanka hoostiisa hadii maaragtay daawadayaashu aysan aad u fahansanayn ayay ciwaanka ama taariikhda ay mar walba kala socon karaan sida daraadeed waxa macquul mararka qaar inaan taariikhda sheegin laakiin idinku aad fahantaan xilliga la soo galiyay haday saacada tahay iyo hadii ay maalmo tahayba inta haddaan kaga gudubno ogeysiiskaas yar daawadayaal barnaamijkan waxaan kaga hadli doonaa dhanka Ethiopia iyo dagaaladii ka socday waxaan si gaar ah u eegi doonaa gobolka lagu magacaabo Raya oo dabcan dirirta ugu xoogan ay ka dhacday halkaasi waxa ka dhacay laguma tilmaami karo dirir caadi ah waxa la sheegayaa xasuuq waxa muuqda inuu ka dhacay xalay kooxda TPLF television-ka afkooda ku hadla Tigray mass media waxa la soo galiyay muuqaal ama laga baahiyay muuqaal askar aad u fara badan oo xiran dharkii ciidamada dawladda ee maaragtay militariga iyo waliba dharka maleeshiyaadka axmaarada askartaasi maxaabiista waxa ay ku sheegeen in ay yihiin maxaabiis ay ka soo qabteen gobolka Raya waxayna ahayd maxaabiis aad u fara badan oo qiyaastii dhowr boqol oo askari ku qiyaasan wararka madaxa banaan ee aan helaynana waxa ay sheegayaan halkaasi in dirirta ugu xoogan ay ka dhacday isla markaasina ilaa iyo hadda ay ka socoto sidoo kale telefishinka afka dawladda Oromada ku hadla OBN ayaa isagana baahiyay muuqaal kale oo dabcan iyadana uu inoo sharixi doono jaamac galad jaamac aan ku horeyna bal arintan Raya inuu si gaar uga hadlayna Raya dhibaato xun baa ka dhacday dagaalku waa meelaha oranaysa aad baa la isugu riiqday waliba aad moodo kooxda TPLF xaqan iyo markii laga soo itaal roonaado iyaga dhankan Adwi iyo Aksum iyo ilaa Adgrad waxaad moodaa iyaguna gobolkan ay aad ugu gacan sareeyeen inta badan dagaalada dhacay maxaan xukahaynaa Raya waxa ka dhacay bismillaahir rahmaanir rahiim waan salaamayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay salaamu alaykum wa rahmatuh inta kadib nurow waa run deegaanka Raya la yiraahdo ma aqaan gobol iyo degmo wuxuu yahay waxa weeyaan horta waa mid kamid ah meelaha mashaqada ugu badan ay ka dhacday yaani gobolka horta wuxuu xuduud la leeyahay ama uu maartay dhinaca ku haya dhinaca dalka Suudaan oo waa galbeedka weey marka waxa muuqata halkaas in kooxda TPLF ay saarayso maxaan ku iraahdaa culayska ugu badan inay saarayso meesha waxa wacdaraha ka dhigay ee ciidankii militariga Ethiopia fuuqsadayna ma aha ciidankii TPLF ma aha waa ciidan beeleedyo waa meesha dadkii joogay xaafadihii un baa intaas abaabuleen qoriyana way haysteen rasaasna way haystaan maxaan ku iraahdaa askartii muf u istaageen marka meydkii wuxuu noqday muf iyo muf waa isku dhamaadeen meesha marka gobolkan Raya la yiraahdo wuxuu noqday gobolka ama meel lagu tilmaami karo xabaalihii ciidanka militariga Ethiopia ciidanku way ku talagaleen inay is adkeeyaan inay is xajiyaan inay guula sheegtaan inay dhahaan annaga gacan sareyna markii dambe waa xaqiiqdii un baa banaanka iyagii baa kiilaha waa guuleysana oo cirkaasaan maraynaa un baa markii dambe yiri inkaar baa nagu dhacdo dhulkan la gooyay marka waxay muujinaysaa miisaanka dagaalka iyo sida dagaalku uu u yahay mid maxaan ku iraahdaa aan lagu tilmaami karin dagaal caadi ah oo xilligan dhacay ama dagaalkii maaragtay qarnigan baki ugu maaragtaa cuslaa ee ka dhaca guud ahaanba eriyadan ama Afrikaba ka dhacay lagu tilmaami karaa aduna caalamka ba ahaynba dagaalka hadda ka socda deegaanka Tigreega awal hore waxa la dhihi jiray dagaalkii labaad ee dunida gadaashi dagaalkii soo raacay yaani masiibadu ka dhacday ugu dhimashada badnaa wuxuu ahaa dagaalkii Eritrea iyo Ethiopia dhexmaray oo maxaan ku iraahdaa yaani dagaalkaas kii labaad soo raaco ahaa kan waxaan u maleynaa dagaalkii wixii yaani dagaal oo dhanba wixii ka dambeeyay inuu kan noqon doono dagaalkii labaad iyo inuu xitaa maartay ku dhawaan doono oo maxaan ku iraahdaa durba wuxuu barastay dheeraanayaa
kii Eritrea iyo Ethiopia dhexmaray sababtoo ah khasaaraha dhacaya iyo dhimashada maaragtay meesha ka jirta iyo mashaqada meesha taala cid xog ka haysaa ma jirto labada qole ee diraysa unba meesha isku haysta labada qolo waxa weey waxay isula hadayaan male wax maaragtay to ka soo waramaya male warbaahinu kama agdhowa qolo walba iyada waxeeda duubanaysa hadiiba ay jiraan wax la duubto hadhow bay rabtaa inay maaragtay ay markay iyagu shirarka iyo meelaha ay galaan Ethiopianku waxay balaayo ku dhigeen waxa laga yaabaa dagaal walba oo dhacaya in la duubo dagaalka walba ee dhacaya ee laga yaabo in la duubo waliba waa maaragtay waa shaqada Tigreega weeyaan wax kaste oo ay qabanayaan 89% way duubaan haddana warbaahinta ma siiyaan حقيقي ayaga haysta حق فلان way dhigtaan kadibna waa kayd ay ugu tala galaan qof inuu ka dhaxlo mid kasta oo kamid ah horjoogayaasha kooxda TPLF waxa suuragal ah inaad aragto yaraantiisii markuu iskuulka dhiganayay markuu jabhada raacay ee u baxayay maxaan ku idhaahdaa intii dagaale uu galay intii khudbadeeda uu jeediyay intii munaasab oo dhan way duwan yihiin wax warbaahinna kama helaysid ayaga markay u baahdaan soo gelinay habeen dootamiyadaan arkaynin ninka la yiraahdo Debresiyon Gabra Mikael oo 77 idaacad xidhaya waxaan ku idhaahdaa to en dhafoor dheer sagara waa 1977 dagaalkii waxa socday Soomaaliya iyo Ethiopia socday waxaan jeclahay markaa hal sano ka hor TPLF ba asaasnayd oo 1976kii yaa la aasaasay markii jabhada la aasaasay uu tagay isagoo oo markaa idaacada Dimsi Wayaan xidhay markaas iyada Dimsi Wayaan baa Dimsi idaacada codka kacaanka wax noocaas weeyaan marka iyagu way duubanayaan iyagu ba hadana dhiganaya meel inkastoo de hadda maaragtay ay qayb ka tahay dagaalka propagandada iyo dacaayaadka iyo maaragtay annaga ku habsanayda ay maaragtay hadda lambarka koobaad ay kaga jirto haddana rajo badan lagama qabo inay soo bandhigaan sida ay u yihiin dagaaladan waana suuragal way soo bandhigi kulley wariyaal madax banaan inay tagaanna waa suuragal weeyaan in kulleyba iyaga duubayaba wax ayagu kama baxsanaya taa iyadoo shaklaan iyaga Tigreega waxa kama baxsanayaan way duubayaan marka meeshan la yiraahdo Raya meel la waxa Raya Raya waxaan u aqaanaa meel gaarisa agteeda oo magaalada Raya la yiraahdo tii xagga loo reeban malayn ala ay taxal tama gobol Rayadaasi marka waxay noqotay wax kale waxa ka dhacay dagaaladii ugu kharaara ee ugu adka ee ugu inkaarna in qoladan TPLF horay waxay iyagu u sheegeen inay kifladoor ama gaaska 22aad gaas hadaad maqasho waa ciidan maxaan ku idhaahdaa to ugu yaraan waa 15,000 ugu badnaana waa 20,000 iyo talisk oo qayb walba oo ciidanka ka kooban qayb walba qaybta maanka gaadiidka gaashaaman qaybtii madaafiicda qayb walba qaybtii noocan markii gaas la yiraahdo wax walba uu ka kooban yahay inay dam siiyeen dawladdu waa tii diiday oo ku yiri maxaan ku idhaahdaa to anaga meeshii joogno oo waliba haysanaa haduu run sheegayo geetaajo reeda kaalay wuxuu yiri shir jiraad ka soo saar Raya oo ku qabo maxaan ku idhaahdaa inaad adigu haysato warbaahinta u soo bandhig waxay dooniba ha noqoto dagaalka Raya wuxuu noqday mid kamida ama dagaalka goobta ugu halista badan ee dhibaatada ugu badan ay ka dhacday ee shacabkiina ay ka barakaceen mar hore ee xagga iyo Suudaan ay u talaabeen haddana maxaan ku idhaahdaa waxa ku hardamaya ku loolamaya uu yahay qof qori wata bas ah qof kale oo ku nool ma jiro qofkii qoriga watay marka waxa weeye ciidankii militariga talaabo markay qaadaanba tii dhaqaaqdaba tay ka dhaqaaqday baa laga gooyaa qolo walba meesheeda lagu dubtaa waxaad moodaa warkii ahaa يعني ciidanka cadawgu wuu yeelan karaa awood ama karti ama maaragtay farsamo uu ku soo galo gudaha deegaanka Tigreega laakiin ma yeelan karo awood iyo karti iyo farsamo uu kaga baxo oo uu dib uga noqdo deegaanka Tigreega dhammaan waa inay xabaalo u noqdaan maxaan ku idhaahdaa hadaladii waxa kamid ahaa hogaamiyaasha Tigreega ay shacabkooda u jeedinayeen tiibaa gobolka Raya ka dhabowday oo aan leex lahayn oo dib loogu noqonin oo kaasa way soo galeen laakiin kama noqon haba ka yaabin okay muuqaalka xalay ay sii deysay Tigray mass media bal wax yar hadii aad noo Tigray mass media oo kamida warbaahinta rasmiga ah ee maxaan ku idhaahdaa waa warbaahinta waa wakaalada wararka Tigreega waxa hoostaga intaas oo wakaal Dimsi Wayaan iyo Tigray TV iyo maxaan ku idhaahdaa waxyaalahaas oo dhan yaa hoostaga oo waa wakaalada wararka wakaalada wararka Tigreega weey wahalka yaani maartay ay wararka ka qaataan warbaahinta oo dhan weeyaan ee qaybisa wararka waxay soo bandhigtay
ilaa iyo adigu 800 oo maxbuus oo isugu jira maleeshiyaadka qowmiyadda Axmaarada iyo ciidanka militariga Ethiopia oo ay ku qabteen dagaalkii Raya sida iyagu ay sheeganayaan maxaabiista marka way kala kaxeeyeen oo waxaad moodaa inay kala qorsheeyeen mid walba sida loola dhaqmayo qaabka loola dhaqmayo kuwan dress-ka qaba iyagu dhib ma laha ciidamada dawladda haa oo dress-kooda iyagu qaba waxaa laga yaabaa meel in lagu xareysto oo halkaa ay iskaga jiraan oo hadhowna markii la yidhahdo maxaabiista hala is dhaafsado maaragtay ay la shir yimaadaan haa laakiin kuwan maaragtay Axmaarada kuwa iyaga way u maydhayaan kuwa iyaga mara good baa galay anu uma dhihine laakiin way u maydhayaan kuwa iyaga waa iskala ku jiraan fadlan kuwaas waxaa weeye waa loo nimcaynaya iyo waa nimanka ku dagaalamaya kuwaasi maxaa weeye nin walba qayb ka mid ah bulshada Tigreega inuu isagu yeesho waxay u socdaan nin walba inuu koox Tigreega soo kaxaysto kuwaas uga cadaawad badan yihiin kuwa militariga wax dhibo militarigu waa saaxiibadood fiiri dadkan dagaalamaya horta labada dhinac waxa ka soo jeeda waa military at least 40,000 ama 46,000 oo kamid ah ciidanka militariga Ethiopia oo ciidanka militariga Ethiopia oo dhammaan saraakiishii khibradda iyo xirfadda military lahayda ya horta xaggan ka soo jeeda xagga Tigreega ha 46,000 oo askari waa conform oo ah Tigranya oo maxaan ku idhahdaa ciidanka Tigreega ah oo qowmiyadda Tigreega ka soo jeeda militariga Ethiopia aha saraakiishii khibradda lahayd ee ciidanka militariga Ethiopia ee meel kasta oo caalamka ka howlgalayay ee maxaan ku idhahdaa tuu fahmayay ba farsamooyinka caalamka loola macaamilay ee wasaaradda gaashaandhigga iyo wax walba gacanta ku hayay ee aqoonta iyo kartida iyo maxaan ku idhahdaa khibradda aad ah maaragtay loogu dadaalay waa kuwan horta xaggan ay ka soo jeedaan raggan ka soo horjeedana waa rag ay isfahmayaan oo iswada yaqaanaan weeye siyaasad ba iyagu isku hayaan marka Soomaaliya garan siyaasad ba iyada la isku hayaa mooyaane cadaawad sii fog labada ciidan kama dhaxayso waxa ay cadaawadu ka dhaxayso waa laba bulsho weeyaan waa bulshada Tigreega iyo bulshada Axmaarada marka sargaalkii xitaa militariga ah ee hadda saraakiisha hogaaminaysa ciidankan oo dhan yaani markii laga reebo 2 iyo 3 Maxamed Taseema oo lagu dhex tuuro oo aan aaminsanahay xitaa waxa la inuu soo ku magacawnayna warbaahinta un baa la tusaa oo maxaan ku idhahdaa warbaahin waa maaragtay nooc yar farsamo waa tabti kaartooyinkii ay dheeli jireen yaa loo dheelaya haa iyaga intay dadka laayaan waxay dhihi jireen moogtahay maamulada Soomaalida haa hebel hadal anaga laynay dhaho dadka ku baxnay oo baabaha ka dhignay iyagana ogdo tahay marka oo tabti oo kala weeye oo Maxamed Taseema oo ka soo jeeda gobolka Tigreega oo maxaan ku idhahdaa wax xil ah oo hayaba aysan jirinba oo General Maxamed Taseema baa lahaa wali xilkaas waxa la yiraahdaa waa isku duwaha dhinaca isgaarsiinta ee militariga dagaalka ku jira mar waxa la yiraahdaa waa madaxa qaybta maaragtay waa afhayeen baa la iska dhigay wixii rabaa la iska dhahay laakiin xil rasmi ah oo ku magacaaban yahay oo title ah oo ay dawladdu siiso markii oo aan generaalnimada ahayn ma jirto ka soo gudub waxa marka waxa weeye ay labada ishaya labada bulshada ishaya xaggan waxa hogaaminaya waa Axmaaro kor ilaa hoos saraakiisha wixii xagga ka soo jeedana waa Tigreeg marka maxaabiista tirada badan ee la qabtay ee u badan maleeshiyaadka qowmiyadda Axmaarada qiyaasta ilaa 500 waa gaarayaan kuwa iyaga waxa weeye waa gooni baabkoodu kuwa militarigaana waa gooni way soo kala bandhigeen oo qolo walba meel bay maaragtay iyo ku xareysteen si rasmi ah meesha ay ku xareysan yihiin iyo goobaha la geeyay lama sheegin kulli ciidan badan oo ay ka qabteen nimanka la yiraahdo Eritreana way jiraan iyagana oo maxaan ku idhahdaa ciidan badan oo Eritrean oo maalmihii ugu dambeeyay xitaa ay qabteen ayaa jira marka waxay dooniba ha noqoto maxaabiistan lagu qabtay dagaalka Raya waa maxaabiistii waxa la dhihi karaa ugu badnayd ama maaragtay ay soo bandhigaan ee ugu badnayd wixii u qarsoon waa gooni waana ilaa iyo 800 oo askari kulli qaar kamid ah warbaahintooda yaa sheegaysa laakiin si official ah iyagu tirada aad bad ma santahay way OBN maxaa laga soo daayay OBN waxa laga soo daayay isla dagaalka Raya OBN waa telefishinka waxa weeyaan waa Oromo Broadcasting walba network weeyaan Soomaaliya garan waa wakaalada rasmiga ah mass media Tigreega oo kale sida hadda ay warkan u soo daayeen weeyaan tan oo waxa weeyaan waa Oromo mass media weeyaan ama OBN weeyaan waxay marka iyaguna sheegeen waxay soo daayeen koox askara
oo ka soo jeeda qoomiyadda Oromada laakiin ka tirsan ciidanka militariga Ethiopia oo waliba saraakiil korneyl ah waxaan u wax channel Oromo aba xaga ay jirin kan ugu weyn mooyaan wada korneyl saddex korneyl weeyaan bay lahaayeen burhaan jiro laga reebo marka dhowrkii korneyl Oromada ahaa meesha joogay oo dhaganabaya ya soo istaagay meesha la dhigo haysto kule aakhiri iyo adduunba suurkiiba lagu rabay taagay nimankan hub casri ah haystaan annagu ma tababarin iyagu tababarkii 27 sano Ethiopia ay ku haysteen iyo meesha kula soo baxeen dukum daakum baan laga dhigay ku leeyahay hal one day ganin dagaal socday baa 2,000 askari lagaga dilay ma aqaan ciidamadu hadda ma beelbeel bay u dagaalamaan mooji Oromadu ma dhinac waa Soomaalidu ma dhinac waa iska suuragal ah dogow taa kale waxay kala cadeeyeen oo ay warbaahinta si caadi uga sheegeen in uusan jirin wax ciidan military Ethiopia ah totally beelbeel loo kala dagaalamayo oo ciidanku laba beelbeel oo kala fadhiyo beelbeel aaminaysa ayna jirin aysan Oromo Axmaar aaminaynin oo askari Oromo uusan Axmaarada ka dhex dagaalamaynin askari Axmaarna uusan Oromada ka dagaalamaynin mid Benishangul uusan ka dhex dagaalamaynin Oromo iyo Axmaar toona intii isku qola ahayd boo is aruursato beelbeel baa loo galiya dagaalka wariya qoladiinan reeb bahalki iyaga baa say kala baxay wixii reer Ashawa oo dhinac u bayra wixii reer Xundubo oo idinkuna hore u baxa oo ka waa noocaas weeyaan marka dawladda waxay dal u soo jeediyeen ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxaan ka baryaynaa hadduu na maqlayo qof wax maqlayo uu yahay ciidanka dagaalka ka celi naga celi dagaalka oo maxaan ku aan soo tababarano oo markii ciidanku tababarka iyo wixiisa uu soo qaato de marka nimanka aan ku soo yaacno laakiin hadda si kasta hadaan u yaacno wax kasta hadaan sameeynay annagiina dhamaanay iyagiina dhamaade kamana guuleysanayno labada khasaarana de wax la isku dhigi karo iyo wax la isgarab dhigi karo ma aha aad baad mahadsantahay jaamac waayahay daawadayaal intaas ayaan ku joojinaynaa barnaamijkan intaan markale kulmi doono nabadgelyo